Van Dijk oo jawaab kulul siiyay dhaleeceyaasha Liverpool kadib xasuuqii Frankfurt. Daafaca Liverpool Virgil van Dijk ayaa la hadlay warbaahinta kadib markii kooxdiisu ay 5-1 ku xasuuqday Eintracht Frankfurt wareegga saddexaad ee tartanka Champions League. Van Dijk ayaa yiri ma garanayo in guushani ay fariin tahay, balse waa mid aan ku dhisi karno mustaqbalkayaga. Isagoo sii hadlayay waxa uu raaciyay, waxaan ciyaarta kubadda cagta ku jiray muddo dheer, sidaas darteed ma dareemayo wax farxad xad dhaaf ah. Waa wax caadi ah in niyad jab la dareemo kadib guuldarooyinkii dhawaan dhacay, balse waa inaan u adkaysanaa, midaysnaanaa oo u shaqeynaa si adag. Van Dijk ayaa intaas ku daray, waan guulaysanay maanta, laakiin hadda waa inaan u diyaar garownaa kulanka Brentford ee Sabtida. Ma ahan inaan ka falcelino hadallada xunxun ee dadkana oranayaan. Habka kaliya ee guul lagu gaari karo waa inaan diiradda saarnaa shaqada xigta. Ugu dambeyntiina kabtanka Redis ayaa yiri, waa inaan sii wadnaa dadaalka iyo guulaha, ogolaaninna waxyaabaha looga hadlo banaanka garoonka inayna mashquuliyaan. maalin wanaagsan saaxiibayaal, meel walba aad naga daawanaysaan. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa warbixintii koobneed ee aan uga hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalkana la soo gaartaa, ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena aad sii share gareyso. haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. mahadsanid.